بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله. waxaa sharaf weyn noo ahayd dhammaan halyeeyada nabadda bahda isboortiga inaan qayb ka ahaano xaflad daafur buugga fitness growth oo uu soo diyaariyey ustaad legend macalin muuse maxamed naasir oo ka mid ahaa halyeeyada barisimaadkii professorna ah dadkii soo maray jaamacadda Lafoole kaalin weyn ku lahaa horumarinta kubadda cagta dalkeena Soomaaliya oo runtii buug uu diyaariyey xaflad aad iyo aad loo soo agaasimay buuggaas oo aasaaska caafimaadka aqoon iyo mustaqbal wanaaga ah fitness growth runtii waxaa ka soo qayb galeen dad aad u badan madax macallimiin halyeeyada nabadda dad isboorti oo halkaan lagu soo koobi karin runtii dad badan meesha joogeen oo ka hadleen macalin muuse waxqabadkiisa macalin muuse waayihiisa dad badan oo macallin uu soo noqday runtii aad iyo aad macalin muuse runtii aabaheyga farax muxudiin allah u naxariisto iskulood ayay ahaayeen maasha allah macalin muuse waa aabbo Soomaaliyeed aad iyo aad u dadaalay markaa fiiriso da'da uu joogo ama da'da uu ku jiro iyo jaceylka waddanka iyo hamiga ku jiro runtii maasha allah dad badan laa ka hadlay meesha joogeen oo runtii aad iyo aad u ammaaneen dadka badan ka hadleen hadalooda waxaa ka mid ahaa qaarkooda soo gaarin aan umaleeyaa adiga waxaan ka hadlayaa dee aniga 1964 ya oo cawnkana number shii buu u yahay يا عبد السلام يا عبد الله سلام يا شريف صالح نمبر 9 ديش marka muuso dad saas ku yaqaan horta waa yaryahay marka alxamdulillah wax qabadkaaga waa ku faraxsanahay iyo hawsha aa wado laakiin wixii wuxuu salaamay salaanta islaamka title ka leesiyay oo ah halyeeyada nabadda asaasiga koowaad wuxuu ahay macalin muuse maxamed kaadin iyo xaaji aadan taas ka title-kaas waxaa iskale macalin muuse asoo ku fikiraya macnaha dadkeena waaweyn da'naday inuu noo sameeyo xataa jimicsi inuu noo sameeyo macnaha meelaas kugu imaano macnaha waxaa dhigayaa macalinka uu noo horeeyaa 10 sano iyo wuxuu noo horeeyaa 20 sano macnaha mustaqbalka la gaari doono waxyaalaha ku fikiraya insha allahu tacaala midda kale hadday waxaa laga dhawaajiyey macalinka aniga 62 ayuu macallin yahay muxudiin wuxuu leeyahay 64 aniga laakiin 62 physical education macallin igu ahay macallin kubadda cagta ugu noqday naadigu macallin ugu noqday xulka qaranka macallin ugu noqday marka macalin muuse waxa weeye keed weeye macnaha taariikhda keedu loo yahay insha allahu tacaala barnaamijyada hadda u wada kubad kaliya ma ahan xataa barnaamijyada xataa excelka iyo wordka iyo kulli asaana baray xataa wuxuu noogu yimid dibadoo noogu yimid ilmo yarna wuxuu baray xataa sida orodada weligiis ku taabaya macalinka wuxuu dhihi jiray kubad kaliya iska daaya ilmihiina keena ha sameeyaan macnaha ha sameeyaan marka wuxuu u abaabulaya tartamo badan macalinka ilaa run ahaantii macalin muuse taariikh qurux badan oo nooga sheekeeyo u baahan in waqti dheer loo helo waqtigoo yar aawiisna waxaa waaye waqtigaas soo kooba maadaama dad soo badan inay joogaan suurtagal ay tahay keliya macalinka waxaa baraarujinaa haddii aan ahay anaga today bahda mediaha oo asal iyo nasii aasaastay hadda naftirkeeda tuulada ciyaaraha sportiska 34 sano kadib aan dib habeen aan ku bilaabnay blue light kambani u taagan inuu horumariyo sportiska wax badan aan iska kaashan doonaa habeenta sportiska ee halkan joogto waqtiyo badan oo qurux badan waan isla qaadan doonaa keliya hadalkayga waxaan kusoo koobayaa macalinka wuxuu u baahan yahay run ahaantii dhalinta maanta waddanka joogto wax keliya ay wax ku arkaan ama ay ku dhegaystaan waa social mediaha arkayna programmo badan oo dibadyo iyo doodo fiican laga sameeyo kala shaqeyno abaabul fiican aan sameyno jadwal programmo oo si musalsal oo taxane ah u baxana loo abuuro
intaasaan isleeyahay intaas inaan ka wada shaqeyno iyo buugga intaan aan u jeedno macnaha Soomaaliya dalka wacyigelin badan aan ku sameyno bulshadana qeybaheeda kala duwan aan gaarsiino dal iyo dibad iyo gobol intaba hadalkayga waan soo gabagabeynayaa waana ku faraxsanahay wejidaan quruxsan maanta inaan la kulmo aad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi